بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu baqara. waxaa noogu soo dambaysay nimankii ahlu kitaabka ahaa ama reer bani israa'iil iyo madax adeygii ay markaa ku jireen. qalbigiinnii ayaa qalalay buu dhahay ilaah markaa kadib, waxayna noqdeen sidii dhagxaanta oo kale, ama wayba ka dareenba xagga qalaylka. waayo dhagxaanta waxaa ka mida kuwa biyaha webiyada ka soo burqada, waxaa ka mida kuwa jeexjeexma, waxaa ka mida kuwa soo dhaca cabsi ilaahay. rabbina ma aha mid haafil ku ah ee ilowsan wax allaala waxa aad camal qabanaysaan. dadka noocaa ah ee xaaladdaa ku dhex sugan ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo mu'miniinta saxaabaduba waxay aad u jeclaayeen inay hidaayada qaataan, inay ilaahay rumeeyaan, islaamkuna ay soo galaan. tii buu ilaahay ka hadlayaa, afatadmacuuna ma damacaysaan mu'miniinay an yu'minuu inay rumeeyaan lakum adinka? damac miyaad ka qabtiin dad xaalkoodu sidaa yahay? afatadmacuuna ma waxaad damac ka qabtaan mu'miniinay an yu'minuu inay idin rumeeyaan lakum adinka? waqad kaana ayadoo ay ahayd fariiqun koox oo minhum ayaga ka mid ah yasmacuuna kuwii maqla kalaam allaahi ilaahay kalaamkiisa. koox ayaga ka mid ah ayaa waxay maqlahayeen ilaahay kalaamkiisa, uma ka bacdina yuxarifuunahu ay ahaayeen kuwii taxriifiya. kalaamka ilaahay oo ay maqleen ay haddana markaa beddelayeen, macaanidiisay beddelayaan, xukunkiisay beddelahayaan, waxyaabo fara badan ayay tabdiil ku samaynahayeen ayagoo kalaamkii ilaahay towraad ka maqlay. min bacdi daalika, min bacdi maa caqaluuhu, markii ay garteenay caqliyeeyeen kadib, wahum ayagoo yaclamuuna og, ayagoo xaqiiqda sida ay tahay og oo ay garteen oo ay fahmeen, yay kalaamkii ilaahay taxriif ku samaynayeenay beddelayeen. dad noocaas ah miyaad damac ka qabtiin inay idin rumeeyaan? afatadmacuuna ma damcaysaan mu'miniinay an yu'minuu inay idin rumeeyaan dad xaalkoodu saa yahay lakum adinka? waqad kaana waxaal qad kaana ay ahayd fariiqun koox oo minhum ayaga ka mid ahna yasmacuuna kuwii maqla oo dhegaysta kalaam allaahi ilaahay kalaamkiisa, uma ka bacdina yuxarifuunahu ay ahaayeen kuwii markaa beddela. intaa kadibna ay ahaayeen kuwa markaa taxriifiya oo tabdiil iyo beddelitaan markaa ku sameeya. way beddelayeen buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. intaa ka bacdi bay ahaayeen kuwa markaa taxriifiya, markaa beddela, waana min bacdi maa caqaluuhu, markay caqliyeeyeen oo ay fahmeen oo ay garteen kadib, wahum yaclamuuna ayagoo og. waidaa laquu hadday la kulmaan aladiina kuwii aamanuu rumeeyey, qaaluu waxay leeyihiin aamanna waanu rumaynay. waidaa khalaa markuu u khalweeyo u keli noqdo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kalena qaaluu waxay odhanayaan kuwii waa rumaynay dhahayay ma ahee kuwii kalaa waxay ku leeyihiin atuxadithuunahum, wama u xadifaysaan oo ma waxaad uga sheekaynaysaanood uga warramaysaan bimaa fataxa allaahu wixii ilaahay furay calaykum korkiinna, liyuxaajuukum si ay idinkula xujootamaan oo ay idinkaga gar helaan bihi kaa cinda rabbikum rabbigiin agtiisa. afalaa tacqiluuna miyaadan caqli qaadanayn? war kuwa garanaya oo fahmaya ma tihiin miya? maxaad uga sheekaynaysaan wixii rabbi idin furay? wixii rabbi idin furee cilmi ah oo ogaal ah maxaad ugu sheegaysaan? ama wixii rabbi idinku xugmiyo cuquubo iyo ciqaabaad ahoo awoobayaalkiin ku dhacay maxaad uga sheegaysaan? yuhuuddaa laba loo tilmaamayaa, kuwa waa munaafiqiin oo iimaankay muujistaan, qolana waa kuwa kaafiriin ahoo idnaba aan oggolayn. kuwa munaafiqiinta ah ayaa markay mu'miniinta u yimaadaan la sheekaysta oo la hadla oo dhaha waa rumaynay,
waan qaadanay xaqa iyo amarkii wixii idinka aad rumayseen. markay u soo haraan oo ay khaali u noqdaan kuwoodii kale yay kuwa kale la dagaalayaan oy leeyihiin war maxaad ula sheekaysanaysaan, maxaad iimaanka ugu muujisanaysaan, maxaad ugu sheegaysaan wuxuu rabbi idin furay, waayo rabbi berita agtiisay idinkaga garhelayaan subxaana wa tacaala. caqli ma lihidin miya? waidaa laquu aladiina kuwii hadday la kulmaan aamanuu rumeeyey qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay. waidaa khalaa hadduu khaali noqdo uu u keli noqdo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale waa yuhuudiye qaaluu waxay leeyihiin atuxadithuunahum kuwii haddaaye mu'miniinta dhahaya waa rumaynay kuwii kale ka soo horjeeday ayaa waxay leeyihiin ma waxaad uga warramaysaan atuxadithuunahum ma u sheegaysaan oo ma u xadiiثaynaysaan bimaa fataxa allaahu wixii ilaahay calaykum korkiina uu u furay liyuxaajuukum say idinkugu xujowtamaan, say idinkaga gar helaan bihi kaa aad uga sheekayseen cinda rabbikum rabbigiin agtiisa. afalaa tacqiluuna miyaadan caqli qaadanaynin? awalaa yaclamuuna miyaysan ogayn ana allaha ilaahay yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay sirriyaysanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay markaa iclaaminayaanba. waxay sirriyaysanayaanay hoos u dhigayaan iyo waxay iclaaminayaanay muujinayaanay kor u qaadayaan, labadaba inuu rabbi og yahay ma oga miya? wa minhum ahlu kitaabka waxaa ka mid ah ummiyuuna kuwa ummiyaal ah. ummiyiin baa ka mida kuwaanan waxna qorin waxna aqrinin, laa yaclamuuna alkitaaba kitaabna aan aqaanin ilaa amaaniya yididiilo mooyaane. wax loo yididiiloo loo mala'waalay meehee wax kale oo ay yaqaaniinna aysan jirin. wa inhum mana aha kuwa ilaa yadunnuuna kuwa wax malaynaya maahane, danni iyo malay isaga jiraanoo ummiyiin baa ka mid ah. wa minhum waxaa ka mid ah ummiyuuna kuwa ummiyaal ah. ummigu waa qofkan wax qorin waxna akhrin ee jaahilka ah. laa yaclamuuna alkitaaba kitaabna aan garanayn oon aqaanin ilaa amaaniya amaaniye yididiila maahane. wa inhum maahum mana aha ayagu ilaa yadunnuuna kuwa wax malaynaya maahane. waxay ku socdaan waa danni buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala, mana aha ilaa kuwa danni iyo mala ku socda maahane. fawaylun halaag wuxuu u sugnaaday liladiina kuwii yaktubuuna qorahayay alkitaaba kitaabka biaydiihim gacmahooda, uma ka bacdi yaquuluuna odhanaya haadaa kani min cindi illaahi alla agtiisa ayuu ka ahaaday, liyashtaruu say u iibsadaan bihi kaa hamanan lacag ay ugu gataan qaliilan ee yar. fawaylun halaag ayaa lahum ayaga waxa uga sugnaaday mimaa kii xaggii katabad ay qortay aydiihim gacmahooda. wawaylun halaag ayaa lahum ayaga uga sugnaaday mimaa yagsibuuna waxay markaa kasbanayaan xaggiisana halaag iyo weyl bay markaa ku leeyihiin. halaag iyo weyl adag wuxuu u sugnaaday kuwa kitaabka gacantooda ku qoraya buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. fawaylun halaag liladiina kuwii buu u sugnaaday yaktubuuna qorahaya alkitaaba kitaabka biaydiihim gacmahooda. ileen in badan bay taxriif iyo tabdiil ku sameeyeen kutubihii samaawigii rabbi u soo dejiyey. waxyaabo aan jirin bay gacmahoodu ku qoreen. uma yaquuluuna kadibna odhanaya haadaa midkani min cindi illaah alla agtiisuu ka ahaaday. caamaday ku sirayaan, way ka iibinayaan. kan ayaa alla agtiisa ka ahaaday leeyihiin liyashtaruu say u iibsadaan bihi kaa hamanan qaliilan lacag yar. macnaha lacagtu si kastabay hamantu ha u badatee wax yar baa laga cabirayaa ilaa waa wax adduun ah. fawaylun halaag baa lahum ayaga uga sugnaaday mimaa kii xaggii katabad ay qortay aydiihim gacmahooda. wawaylun halaag ayaa lahum ayaga uga sugnaaday mimaa yagsibuuna waxay markaa kasbanayaan ee dembiya xaggiisa. waqaaluu waxay yidhaahdeen ahlu kitaabkiiyo lan tamassana annaaru anagu naarna taaban mayso ilaa ayaaman maalmo maahane macduudatan ee la tiriyey. ayaamo macduudo ah oo fara ku tiris ah waa ayaamihii yaraa ee awoowayaalkeennii aabbayaalkeen dibigu ay caabudeen. hadday u badataba 40 maalmood ayaa annaga nala cadaabaya.
cadaab annaga maba nala kudayaayo, hadday suuragal noqoto nala cadaabana waa ayaamo macduudaad ah. qul waxaad ku dhahdaa attakhadtum ma yeelateen oo ma waxaad samaysateen cinda allaahi alla agtiisa miyaad axdan ballan dhigateen oo falan yukhlifa allaahu ilaahay ma gub yeelaya miyaa cahdahu ballantiisa, oo ma alla agtiisaa ballan idiin taala idinkoo saa u yaala oo shirkigaa ku jira oo diinta alla saa u taxriifinaya, haddana in maalmo yar laydin cadaabo ma ballan alla agtiisa idiin taaloo aan laydinkaga baxayn miya? am taquuluuna mase waxaad odhanaysaan am taquuluuna ay bal taquuluun waxaad odhanaysaan iska daa inaad alla agtiisay ballan idiin taalee waxaad ku hadlaysaan cala allaahi alla korkiisa maa laa taclamuuna waxaadan ogayn, waxaadan cilmi iyo ogaal u lahayn ayaad ilaahay dushiisa kula hadlaysaan subxaana wa tacaala. naarta wax yar bayna taabanaysaa bay dhaheen, baalmihii yaraa ee aabbayaakeen ay dibigu caabudeen baa annaga laga yaabaa inaan cadaab ku jirnay, haddaan galno xataa ku waari mayno. wa qaaluu lan tamassana annaaru naartuna taaban maysa ilaa ayaaman maalmo maahane macduudatan la tiriyey. qul waxaad tidhaahdaa attakhadtum ma yeelateen oo ma waxaad samaysateenood dhigateen cinda allaahi alla agtiisa cahdan ballan oo falan yukhlifa allaahu alla uusan ka bixin guub yeelaynuusan burinaynin cahdahu ballantiisa miya? am taquuluuna mase waad dhahaysaanoo waxaad ku odhanaysaan cala allaahi alla dushiisa maa laa taclamuuna waxaadan ogayn. balaa iska daa inay maalmo yar idin taabato cadaabkee man kasaba qofkii kasbadoo samaystay sayi'atan xumaan oo wa axaadad ay koobta bihi asaga khatii'atuhu gafafkiisii xumaanyaalkiisa intay tira bataan ay koobaan, fa ulaa'ika kuwa asxaabu nnaari naarta asxaabteedii waaye, hum ayaguna fiihaa naartaa gudaheeday khaaliduuna ku waarayaan. waaladiina kuwiisa aamanuu rumeeyey wa camiluu camal qabtay alsaalixaati acmaalaha fiicfiican, ulaa'ika kuwaasi asxaabu aljannati jannada asxaabteeday ahaanayaan, hum ayaguna fiihaa jannadaa gudaheeday khaaliduuna ku waarayaan. saasaa loo kala baxayaayo in yar bayna taabanaysaa iyo saasay xaalkeennu yahay ma jirto. waid akhadnaa wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilay id wakhti akhadanaa aan qabanay miihaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil miihaaqoodii iyo ballantoodii laa tacbuduuna waanu ku niri caabudi maysaan ila allaha ilaahay mooyaane, macnaha caabudina ilaa ilaahay maahana, laa tacbuduuna caabudi maysaan oo ha caabudina ila allaaha alla maahane, wabilwaalidayni labada waalid oo idin dhashayna ixsaanan ixsaan iyo wanaag u qabta, wadilqurbaa kuwa qaraabada iyo dhowaashaha u saaxiibkana ixsaan u sameeya, walyataama agoontana ixsaan u sameeya, waalmasaakiini masaakiintana ixsaan u sameeya, oo waquuluu u dhaha linnaasi dadkana xusnan wanaag. war dadka aad la dhexnooshihiinna xusni iyo wax fiican iyo kelimad wanaag ah iraahda. wa aqiimu asalaata salaada ooga, wa aatu azakaata sakadana guta. uma intaa ka bacdi tawallaytum waad jeesateen ilaa qaliilan in yar oo minkum idinka mid ah maahane, in yaroo idinka mid ah maahee ballantii oo dhan waad buriseen oo waad ka jeesateen. wa antum idinkoo mucriduuna kuwa jeesanaya ah. weligiinba waad jeesan jirteenoo da'bi iyo dhaqan iyo caadaad u lahaydeen xaqa inaad ka jeesataan, ballantaana markaa waad diideen. waid akhadnaa wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilay id wakhti akhadanaa aan qabanay miihaaqakum ballantiina oon idinku nidhi laa tasfikuuna daadin maysaan dimaa'akum dhiigagiina ha daadinina, macnaha dhiigagiina ha daadinina, laa tasfikuuna daadin maysaan dimaa'akum dhiigagiina, walaa tukhrijuuna mana bixinaysaan anfusakum nafafyaalkiina min diyaarikum guryihiina ka bixin maysaan. uma intaa ka bacdi aqrartum waad aqbasheen oo waad oggolaateen arrintaa, wa antum adinkoo tashhadiin ahoo
kuwa markhaatiyaal ka ah arrintaa markaa ah, idinkoo shaahidiin ka ah arrintaa, kuwa markhaati ka ah arrintaa aad tihiin, kuwa ku marakacaya aad tihiin, kuwa ku marakacayo ku marag furaya aad tihiin ayaad arrintaa aqbasheen. wa antum tashhaduuna, waayo ayaga dhexdooda inay isdilaan ama ay isqafaashaan amay guryaha iska bixiyaan diintoodu waa u diiday. uma ka bacdi antum adinku haa'ulaa'i kuwan baa tihiinoo taqatuluuna waxaad dilaysaan oo aad laynaysaan anfusakum nafafyaalkiina, wixii kitaabkiina ku qornaa oo aad aqbasheen baad ka baxdeen. haddana markii gobolkood gobolka kale ay la soo wada safteen nimankii dagaalamayay, yaa markay iska hor yimaadaan bay islayn jireen. uma antum haa'ulaa'i kuwan ayaa tihiinoo taqatuluuna waxaad dilaysaan anfusakum nafafyaalkiina, wa tukhrijuuna waxaad ka saaraysaan fariiqan koox oo minkum adinka idinka mid ahna min diyaarihim guryahooda ayaad ka bixinaysaan. tadaaharuuna idinkoo isu kaashanaya oo isku kaalmaynaya calayhim korkooda bilifmi dembiga iyo walcudwaani, ifmiga iyo cudwaanka idinkoo isugu kaalmaynaya ayaad arrintaas samaynaysaan. tadaaharuuna idinkoo ah kuwii gacan isku siinayee isugu caawinayee isugu kaalmaynaya calayhim korkooda bilifmi waalcudwaani, dembi iyo collaytan labadaba. wa in ya'tuukum hadday idiin yimaadaan usaara kuwa qafaal ah, kuwa lasoo qafaaloo lasoo taxaabay haddii laydiin keenay idiin yimaadaanna tufaaduuhum waad furanaysaan. waxaal huwa kaana muxaramun, kaah inaad marka horeba dagaalantaan ood guryihii ka bixisaan oo dhiig daadisaanna muxaramun uu ka ahaa mid xaaraam ka ah calaykum korkiina, ikhraajuhum bixitaankooda. wahuwa kaana muxaramun, xaaraan buu calaykum korkiina ka ahaa ikhraajuhum bixitaankoodaba. mar allaala markii dagaalka la dhahana way islaynayaan. marka rag qafaal ah loo keenana waxay leeyihiin annagu diinteennu ma qabto inaan isqafaalano, way sii daynayaan. xaaraan buu ka ahaa ikhraajuhum. ee afatu'minuuna ma rumaynaysaan bibacdi alkitaabi, kitaabka gobolkii, wa takfuruuna ma kufrinaysaan oo ma ku gaaloobaysaan bibacdin kitaabka qaybtiisa kale, gobol ma rumaynaysaan gobolna ma beeninaysaan. famaa jazaa'u maxaa abaalgud u ah oo lagu abaalmariyaa man yafcalu qofkii sameeya daalika arrintaa oo ah in kitaabkana bar la rumeeyo barna la inkiro oo minkum adinka idinka mid ah. maxaa kaa lagu jaasin karaa ilaa khizyun, hoog maahee lagu hoojiyo fi lxayaati addunyaa nolosha adduunka. wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana yuradduuna waxaa loo celinayaa ilaa ashaddi alcadaab, cadaabkiisa ugu xun. maalinta qiyaamana waxaa loo celinaa marka adduunka lagu qisyeeyee lagu hoojiyo ilaa ashaddi alcadaabi, cadaabkiisa ugu xun. wama allaahu ilaahayna ma ahaanin bighaafilin mid ilowsan camaa tacmaluuna waxaad camal qabanaysaan, waxaad samaynaysaan ilaahay ghaafilka ma aha. ulaa'ika kuwa aladiina kubii waaye ishtarow gatay, ulaa'ika kuwa aladiina ishtaraw alxayaata addunya, waa kuwa noloshii dhoweyd ee adduunka iibsadayoo bilaakhirati aakhira ku gatay. aakhira intay iska bixiyeen bay xayaatadii adduunka soo qaateen. falaa yukhafafu laga khafiifin maayo canhum xaggooda alcadaabu, cadaabka laga khafiifin maayo. walaa hum mana ay ahaanin yunsaruuna kuwii loo gargaarayo, mana loo gargaarahayo buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala, cadaabkana laga khafiifin maayo. walaqad aataynaa waan siinay muusaa nebi muuse alkitaaba, kitaabkii ayaan siinay towraad ahaa. waqafaynaa waxaan raacsiinay min bacdihi asaga gadaashiisa waa muuse birusuli, rusul ayaan raacsiinay. wa aataynaa waanu siinay ciisa nebi ciisihii ibna maryama. wa aataynaa waan siinay ciisa bna maryama, ciisihii ibna maryama, maryama canugeedii ahaa, ciisihii maryamo ay dhasho aabbala-aanta alla abuuray.
waxaanu siinay asagana albayinaati aayaadkii cadcadaa wa ayadanaahu waxaan ku ayidnay oo aan ku xoojinay waa ciise biruuxi alqudusi ruuxii tahirnaa waa malakuljibriil. jibriil ayaa cinaayadiisii barbaarintiisii korintiisa gacanta ku haayay. sidaa darteed ayuu ilaahay tilmaamayaa uu leeyahay ciisihii maryamo canugeeda ahaana aayaadkii cadcadaa ayaanu siinay wa ayadnaahu waxaan ku xoojinay biruuxi alqudusi ruuxulqudus. afa kullamaa mar kastoo jaa'akum uu idiin yimaado rasuul uu idiin yimaado bimaa shay uu idinla yimaado laa tahwaa aysan jeclaysanayn anfusukum nafafyaalkiina waxaysan nafafyaalkiina la dhicin aysan tahwiyaysanayniinan jeclayn hadduu idinla yimaado istakbartum ma isweynaysiinaysaan. mar walboo rasuul idinla yimaada waxay nafafyaalkiinu jeclayn istakbartum ma iskibrinaysaanoo ma iska weynaysiinaysaan. oo fa fariiqan koox rusushii ka mid ahna kadabtum ma beeninaysaan wa fariiqan koox kalena taqtuluuna ma dilaysaan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. see xaalkiinu yahay reer bani israa'iiley mar kastoo nebi idiin yimaado idinlana yimaada waxaysan nafafyaalkiinu qanacsanaynayn jeclayn oo aysan ka helin bimaa laa tahwaa waxaysan hawinaynaysan jeclaysanayn anfusukum nafafyaalkiina istakbartum ma isweynaysiinaysaanoo ma iskibrisiinaysaan. fa fariiqan koox rusushii ka mid ahna kadabtum ma beeninaysaan wa fariiqan koox ka mid ahna taqtuluuna ma dilaysaan. wa qaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa quluubteenna gulfun daboola ahaaday. quluubtaannu quful ka saarannahayoo qalifbaaba korkeeda saaran. bal iska daaya lacanahumullaahu ilaahay baa lacanadayoo raxmaddii ka fogeeyey bikufrihim kufrigooda sababtiisa faqaliilan wax yar faqaliilan in yarna maa yu'minuuna rumayn maayaan wax yar xataa rumayn maayaanoo ilaahay baaba lacanadayba. quluubta ay ku tilmaamayaan qulfi iyo daboolo inay saaran yihiin rabbi baa lacanaday subxaana wa tacaala. waxaana loo lacanaday waa kufrigooda sababtiisa wax yar xataa ma rumaynayaan. walammaa goortii jaa'ahum uu u yimid kitaabun kitaab oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday musadiqun rumaynahaya limaa macahum wixii micigooda ahaaday wakaanuu ayna ahaayeen min qablu horay yastaftixuuna kuwa istiftaax ku weydiistaa kuwa ku gargaar dalbada nasri iyo gargaar kula dalbada cala aladiina kuwii korkooda kafaruu kufriyey ay saa ahaayeen. falammaa jaa'ahum markuu u yimid maa carafuu wixii ay garteenay aqoonsadeenay ku ogaadeen nebiga xaqiiqdiisa kafaruu bihi way ku kufriyeen. rasuulkii bay inkireen falacnatullaahi ilaahay lacanadiisana cala alkaafiriina kaafiriinta korkooda ha ahaato. waxay aayaddu tilmaamaysaa intaan nebi moxamed la soo dirin nimankan yuhuudda ahna ay la dagaalami jireen carabta intooda kale ayaa waxay dhihi jireen nebi ayaa imaan doona aakhiru zamanka. nebigaa intaana loogaga hormarin ayaan rumaynaynaa. haddaan rumaynana iram iyo caad sida loo tirtiroo loo baabi'iyey oo kale ayaan idiin tirtiri doonnaa oo waan idinka adkaanaynaa. nebigaasay horay istiftaax iyo nasri iyo guul ugu dalbi jireen. mar allaala markii la soo diray oo ay garteen inuu carab noqdayna way beeniyeen oo way inkireen. nacaladda allana kaafiriinta korkooda ha ahaato. walammaa jaa'ahum markii uu u yimid kitaabun kitaab oo min cindi illaahi alla agtiisa ka ahaaday musadiqun rumaynahaya limaa macahum wixii micigooda ahaaday wakaanuu ayna ahaayeen min qablu horay intaan nebigaa u imaanin yastaftixuuna kuwa ku gargaar dalbadoo nasri iyo guul ku weydiista cala aladiina kuwii dushooda yay uga gargaar dalban jireen kafaruu gaaloobay. falammaa jaa'ahum markii uu u yimid maa carafuu wixii ay garteen wixii ay fahmeen oo ay garteenay ogaadeen markii uu u yimidna kafaruu bihi way ku kufriyeen way ku gaaloobeen oo way inkireen falacnatullaahi
ilaahay lacanadiisana cala alkaafiriina kaafiriinta korkooda ha ahaato bi'sa maa shay baa baas lahoo ishtarow ay iibsadeen bihi shayga anfusahum nafyaalkooda oo ah an yakfuruu inay ku gaaloobeen ay ku kufriyeen bimaa anzala allaahu wixii ilaahay soo dejiyey bagyan xasidnimo iyo xadgudub darteed ay ku baqyinayeenay ku xasdayaan an yunazila allaahu inuu ilaahay ku soo dejiyo min fadlihi fadligiisii nebinimada calaa man yashaau qofkii uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah fabaa'uu way la gadoomeen oo waxay la laabteen biqadabin carro oo calaa qadabin carro dusheeda ahaatay walilkaafiriina kaafiriintana cadaabun cadaab baa u sugnaaday muhiinun ihaane iyo dulli u saaxiib ah kaafiriintana cadaab ihaaneeyey markaa leeyihiin nafafyaalkoodu waxay ku iibsadeen inay ku kufriyeen wuxuu ilaahay soo dejiyey oo ah ayagoo xasdahaya oo baqyi iyo xaasidtinimii xadgudub ay ula jeedaan inuu ilaahay fadligiisa siiyo cid allaala ciduu doono addoommadiisa ka mid ah nebi moxamed nebinimadiisa inkiritaan iyo xasad ay xasdayaan darteed fabaa'uu way la gadoomeen biqadabin carray la noqdeen calaa qadabin carra korkeeda ahaatay walilkaafiriina kaafiriintana cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo muhiinun ihaanii dulli u saaxiib ah waidaa qiila haddii loo yidhaahdo lahum ayaga aaminuu rumeeya bimaa anzala allaahu wixii ilaahay soo dejiyey qaaluu waxay odhanayaan nu'minu annagu waxaan rumaynaynaa bimaa unsila calaynaa wixii korkeenna lagu soo dejiyey qur'aankan rumeeya alla soo dejiyey haddii la yidhaahdo wixii annaga dusheenna lagu soo dejiyey towraad ah ayaan rumaynaynaa bay leeyihiin wayakfuruuna waxay ku kufrinayaan bimaa waraa'ahu wixii gadaashiisa ahaaday bimaa waraa'ahu waa qur'aankee wahuwa alxaqu waana xaq oo musadiqan rumaynaya limaa macahum wixii micigooda ahaaday kitaabkan ay inkirayaanay leeyihiin annagu ma rumaynayno kooduu rumaynayaa kooduu tasdiiqinayaa limaa macahum qul waxaad ku tidhaahdaa waayahey haddaad towraad rumaysan tihiin falima taqtuluuna maxaad u laynaysaan ood u dilaysaan ambiyaa allaahi ilaahay ambiyadiisa min qablun horay maxaad nebiyada horay ugu layseen ma taasaa ku qoran kitaabka towraad kitaabka towraad iyo wixii nala ku soo dejiyaan rumaynaynaa markaad leedihiin nebiyada ha la laayo miyaa ku qoran qul dheh falima taqtuluuna maxaad u layseen oo aad u disheen ambiyaa allaahi ilaahay ambiyadiisa nebiyadii alla maxaad u disheen min qablu horay in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa rumaysan saad sheeganaysaan haddaad towraad rumaysan tihiin maxaad u layseen nebiyadii alle ma kitaabka towraad nebiyada alla ha la laayo miyaa ku qoran in kuntum mu'miniin xataa haddaad tihiin kuwa towraad markaa rumaysan annaga waxiinala ku soo dejiyaan rumaynaynaa bay leeyihiin waxaal yakfuruuna ay ku kufrinayaanay ku gaaloobayaan bimaa waraa'ahu wixii gadaashiisa ahaaday wa huwa alxaqu asagoo xaq ah oo musadiqan rumaynahaya limaa macahum wixii micigooda ahaaday kitaabkaa ka dambeeyey qur'aanka ah wax kale ma aha ilaa wuxuu rumaynayaa wixii ayaga asaga ka horeeyey oo kitaabkii ayaga ay haysteen ah kaasna markaa way inkirayaan limaa macahum qul waxaad ku dhahdaa rasuulkii allow falima maxay baad taqtuluuna u layseenood u dilaysaan ambiyaa allaahi ambiyadii alle yaxye yaa dilay zakariya yaa dilay idinka sow ma aha markaad leedihiin midka annaga nala ku soo dejiyaan rumaynaynaa oo oraahdiinnu ay tahay nu'minu bimaa unsila calayna wixii korkeenna lagu soo dejiyaan rumaynaynaa qul falima taqtuluuna ambiyaa allaahi war nebiyada alla maxaad u dhammayseenood u layseenood u disheen min qablu horay ma kitaabka towraad baa sheegaya in nebiye la dilo ma kitaabka towraad baa ku qoran in ambiyada alla la laayo in kuntum mu'miniina kuwa iimaan sheeganayo mu'miniin ahoo rumaysan xataa towraadba haddaad tihiin maxaad u layseen nebiyadii waxaad sheeganaysaan inaysan waxba ka jirin baa xaqiiqo ah iimaankaad sheeganaysaan iimaan dhaba inuusan markaa ahayn saa darteed baa waxay sheeganayaan dhammaan uu yahay wax markaa isburinaya khayri wanaagna aan lahayn quldhe falima maxay baa taqtuluuna u disheen ambiyaa allaahi nebiyada alle min qablu horay in kuntum haddaad tihiin mu'miniina
kuwa mu'miniin ah oo rumaysan kitaabka aad sheeganaysaanee towraada xataa wax ka jira markaa ma jira waxay sheeganayaan. walaqad jaa'akum muusa bilbayinaat wabillaahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.